السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي waxaana wanaagsan dhamaan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channelka Samna Kasto Official fadlan hadii aad markuu hore soo baahato channelka subscribe noo saar kambalka furo si markasta ku soo gaaraan muuqaalada xisaab badan kana soo gelino hadii aad horan joogtana muuqaalka noo leeyahay soo kala sii share gare si muuqaalku gaar saaxiib badan ay nagu soo biiraan channelka maanta akhbaaraadkana ugu weyn marka ku soo qaadanaa filimka Jawaan oo maanta laga soo bandhigay goosgooskiisa rasmiga isagoo filimka daawashadiisa ka dhimantay ku dhawaad 6 maalmood ka dhimantay filimka la soo bandhigay goosgooskiisa sidoo kale waxa soo qaadanayna filimka lagu magacaabo Kushi oo markaa hogaamiyay ka Fijoto Forgonda filimka la soo daawacay warbixintiisa markaa filimka lacagaha lagu iibsaday marka la fiiriyo lacagaha tiyaatarada oo qolyaha distributorka macajalada qayb lacagaha ku iibsadeen sidoo kale saaxiibada waxa soo qaadanayna filimada lagu magacaabo Dream Girl Turu iyo sidoo kale Gardaatu wali markaa ganacsi fiican sameynaya iyo sidoo kale filimka lagu magacaabo King of Kotha hogaamiyay ninka lagu magacaabo Tulku Salman ayaa soo qaadanayna oo dhankaasi Malayalamka laga leeyahay sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimka marka lagu magacaabo Jawaan oo maanta laga soo bandhigay goosgooska inaba caadi ahayn filimkan waxa laga sameeyay ninka lagu magacaabo Atli oo dhankaasi Tamil Nadu markaa ka yimi sidoo kale filimkan hogaamiyaasha waxa kamid ah Nayatara filimka doorka tirshada qaadantooda sidoo kale Tabika Putukana filimka waxa special aways ama muuqaal marti ay filimka ku leedahay halka ninka lagu magacaabo Fijaysa Tubutuna filimka la awood badan kuma taliyo oo marka SRK filimkan isqaban doonaan sidoo kale gabadha lagu magacaabo Gauri Khan oo marka u dhaxda Shahrukh Khan filimka waxa ka tahay producer ay ka tahay iyo sidoo kale shirkadeeda marka Rajay Entertainment ay marka Gauri Khan madax u tahay sidoo kale marka la fiiriyo filimkan ama goosgooskiisa marka la soo bandhigay inaba caadi marka la soo bandhigay dhankaas YouTube-ka saameynaya inaba caadi filimka la imaaday ku dhawaad hal saac oo kaliya filimka 500 kun oo lay dhanka YouTube-ka filimkaas la gareysay sidoo kale muuqaalka ama goosgooska laga soo bandhigay xitaa wax ka soo muuqday marka xidigta lagu magacaabo Nayantara sidoo kale Tabika Putukana dhamaan filimkan waxa ka soo muuqday shakhsiyaadka kala duwan ee filimka ka soo muuqday waxa kamid ah Sanya Malhotra oo filimka kaalmo ku leh iyo xidigta marka dhankaasi Tamil Nadu marka ka soo jeeda fanka Chennai xidigta lagu magacaabo Priyamani filimka xataa qayb ay ka hay sidoo kale filimka looma kala xataa Yogi Babu ayaa filimka ku jira oo sanadooyin kadib marka SRK shaashadaha kala soo muuqan doona waxa iskugu dhameysay filimkii caanka ah Chennai Express oo dhankaasi Chennai lagu sameeyay haddana filimkan ay marka Yogi Babu iyo sidoo kale SRK ka soo wada muuqan doonaan filimkan xisaab badan waxa daawan doona 7 September hadda 6 maalin oo kaliya filimka daawashadiisa ka harsan sidoo kale filimkan waxa la filayaa maanta marka 8 PM marka la fiiriyo dhankaasi Burj Khalifa ayaa filimka waxa lagu soo bandhigi doonaa goosgoosiisa si marka filimka xaysiina inaba caadi lagu sameeyo marka la fiiriyo dhankaasi golofka ama khaliijka carabta actorka marka aad loogu jecel yahay filimeysan marka aad loo xiiseeyaa marka la fiiriyo suuqyada caalamka hadii noqon lahayd dhankaasi carabta iyo actorkan aad loogu jecel yahay xitaa filimkiisa bataan dhankaasi khaliijka carabta actorkan filimkiisa aad loogu soo dhaweeyay haddana waxa la filayaa filimkan trailerkiisa la soo bandhigay inuu kun karoor marka ka tilaabi doono hadii filimka wax ku hartaa sheekaysa ay wanaagsanaato balse hadda waxa ku saleynaa goosgooska oo kaliya filimka marka laga soo bandhigay wuxuu goosgoos holacay halka lagu magacaabo Fijaysa Tubutuna filimkan teaserka hore laga soo bandhigay aad ay marka lagu yaray balse hadda trailerka inaba caadahan ee la soo bandhigay Fijaysa Tubutuna inaba caadahan filimka ka qaatay isagoo filimka laba door kala duwan filimka ku matalaya oo doorka xumaanta ay marka Fijaysa Tubutuna qaadanaya halka marka la fiiriyo SRK filimkan uu door kala duwan filimka ku matalaya halka marka xasuusi hore filimkan askari ku matalay kadibna marka uu door filan ama laadar filimkan isku matali doono balse filimka marka la fiiriyo 7 September filimkan markuu soo baxo ayaa la ogaan doonaa filimka sheekaysa dhabta sidoo kale wax ku saleysan tahay waxaana ka dhiman ku dhawaad 6 casho sidoo kale filimkan xaysiin balaya marka loo sameyn doono 6 maalin filimka ka harsan asxaabta filimkan wax ka soo kordhin wax ku soo gudbin doonaa muuqaaladan xiga saaxiibada qiimaha badan sidoo kale waxa soo qaadanayna filimka marka lagu magacaabo Kushi marka hogaamiyay Fijoto Forgonda halka xidigta marka lagu magacaabo Samantha Ruth Barbouna filimka tirsha koowaad ka tahay sidoo kale xidiga marka lagu magacaabo Shaatirada caanka finalka Shorina filimkan uu door adag filimka ku leeyahay doorka komikista ee filimkan ku matalaya sidoo kale filimka waxa la soo daabacay warbixinta marka ku saabsan filimkan qolyaha distributorka macaaliyaha qayb filimkan lacagaha marka ku iibsadeen halka marka la fiiriyo lacagta ugu badan waxa lagu iibsaday filimkan dhulka marka lagu magacaabo Andhra Pradesh ama filimka loo yaqaan Telangana State oo lacag marka gaaraysa 40 koroor ee filimka dhulweynaha Andhra Pradesh ama Telangana State la isku yiraahdo ee filimka lagu gatay hadii aan soo kale isku dana lacagta nizaam oo dhankaas Andhra Pradesh ka tirsan waxa lagu iibsaday filimkan 13 koroor gobolka Sindh loo yaqaan 6 koroor ee filimka lagu iibsaday Andhra Pradesh oo gobolka ugu weyn ee filimka waxa lagu iibsaday 18 koroor sidoo kale Karnataka iyo sidoo kale India qaybaha kale waxa lagu iibsaday 4 koroor Tamil Nadu filimka waxa lagu iibsaday 3 koroor halka suuqyada caalamka ama fasiiska filimka lagu iibsaday 6 koroor weerarta guudna filimka waxa lagu iibsaday ku dhawaad 3 koroor
filimkan wuxuu guuleysan karaa haddii filimkan 100 karoor ka tilaabo ilaa 115 karoor haddii filimkan gaaro wuxuu noqon doonaa filim markay dhameystiran haddii filimka 105 karoor ilaa 110 karoor filimka ganacsi ahaan la soo xareeyo wuxuu noqon doonaa filim marka average hoontaan filimka marka la fiiriyo dhanka suuqyada caalamka filimkan lacag warka 6 karoor ee filimka lagu iibsaday taasoo ka dhiganta filimka wax laga yaabo suuqyada caalamka lacagtiisa soo celiyo sidoo kale filimka sheekadiisa marka la fiiriyo ama gooskooskiisa filimka wax lagu saleeyo waxa filim marka gooskooska inaba caadi ahayn oo filimka dhankaas YouTube-ka filimka gooskooskiisa aad ay marka loogu soo dhaweeyay fiidyada furkantan wadadii marka lagu yaqaan dhanka jacaylka ama romantic ee filimka dib ugu soo laabanaya haddii filimka ka fashilmay Lager filimka ku sheegay marka actorka ugu soo laabanaya hoontaan filimka haddii sheekadiisa wanaagsan maalinta sheekadiisa wanaagsanaato hoontaan wuxuu noqonayaa filim guuleystay oo marka darajada hit marka gaara oo haddii filimkan sheekadiisa wanaagsanaato xitaa filimka tiyaatar ku filim oo haysta maadaama filimada ugu dambeeyay tiyaatarada saanaadeen noqon lahayd filimada Godfather sidoo kale Paramalonda iyo sidoo kale xitaa filimka Jeff hogaamiyay Bola Shankar wuxuu noqday filim fashilmay waxaa laga yaabaa filimka tiyaatarada ugu badan in marka la siiyo oo filimkan tiyaatarada ugu badan marka la fi dhankaasi lagu filimka la siiyo sidoo kale filimkan xisaab badan lagu oo kaliya haddii filimkan lacagtiisa 80 karoor ilaa 85 karoor ka keeno ayuu filimka lagu marka hit dhameystiro filimka ku noqon doona saaxiibada qiimaha filimka ku shii hogaamiyay fiidyada furkonta Samantha Farwin filimka tirshak waad ka tahay intaas ayaa ka cusub wixii ka soo kordhaan ku soo gumin doona muuqaaladan xiga ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan wax soo qaadanayna filimada tiyaatarada saaran ee marka kamid yihiin Dreamka Tourist sidoo kale Gardaar 2 oo ah filim marka Bollywood sidoo kale marka la fiiriyo Gardaar 2 wali filimka tiyaatarada ayuu marka saaran yahay ku dhawaad 3 toddobaad ayuu filimka tiyaatarada saaran yahay wax soo qaadanayna filimkan Day 20 ama 20 cisho filimkan masrax saaran yahay isagoo filimka soo baxay 11 Agoosto xitaa filimka hadii marka tiyaatar ama filim cusub marka tiyaatarada saaray wali filimka ganacsi wanaagsan oo marka sameynaya sidoo kale hadda marka fiirino Gardaar 2 ganacsigiisa guud dibadda filimka hadda wuxuu maraya ku dhawaad 625 karoor filimka ka tilaabay wuxuu noqonayaa sanadii filimkiisa ugu horeeyay marka 600 karoor marka ka tilaaba hore wuxuu haystay filim marka 100 ilaa 200 karoor marka gaaray hadda darajo cusub ay marka gaaray sanadii sidoo kale xitaa marka la fiiriyo gudaha Hindiya ama filimka Hindi marka lagu daawadana filimka wuxuu maraya ku dhawaad 424 karoor hada marka iskoorkii Bahubali 2 sidoo kale waxa lagu shartamaya iskoorkii Bahubali 2 sidoo kale bataan marka filimkan uu gaari doono humataana filimkan uu gaari doona waa hadii filimka toddobaadkiisa marka afraad filimkan marka ganacsi ahaan marka isceliyo sidoo kale filimka suuqyada caalamka xitaa ganacsi wanaagsan marka ka sameynaya oo 60 karoor filimka ka tira hadan wuxuu maraya ku dhawaad 62 karoor ay filimka suuqyada caalamka gaaray sidoo kale soo qaadanaa filimka Dreamka Tour marka hogaamiyay Ayushmann Khurrana waa qaybtii labaad Dreamka oo markii la daawado sanadii 2018 hadana filimkan Ayushmann Khurrana sidoo kale Ananya Pandey hogaamiye ka yihiin 6 maalmood marka tiyaatarada saaray 5 Agoosto marka tiyaatarada saaray ganacsigiisa guud marka la fiiriyo dibadda hadda wuxuu marayaa 80 karoor halka marka la fiiriyo All India Business filimkan uu gaaray ganacsigiisa 59 karoor filimkan maraya hubantaan filimka toddobaadkiisa labaad markuu guda galo wuxuu noqonayaa filim marka hit dhameystiran taasoo filimka sabab tahay filimkan lacagta marka lagu iibsaday sidoo kale ku dhawaad 35 karoor filimka lagu kharash garay filimkan waxa laga rabaa gudaha Hindiya oo kaliya filimka 80 karoor inuu marka gaaro hadana darajadaas filimkan waxa uu dhiman ku dhawaad 20 karoor hubataana toddobaadkiisa labaad ee filimka ganacsiyan noqon doona filim marka hit dhameystiran hadii aan soo qolo marka fanka Koonfur Hindiya marka la fiiriyo bishan Agoosto marka waa kaliya maadaama filimada ugu dambeeyay marka la fiiriyo fanka dhankaasi Koonfur Hindiya filimka Jelal oo kaliya marka uu ka guuleysteen halka filimada kale lagu soo kale oo laba filim marka loo saaray noqday filim marka ku guuldareystay halka Malayalamka filimka lagu magacaabo King of Kotha la saaray oo noqday filim marka ganacsi ahaan marka guuldareystay oo marka ganacsi gaabisa marka sameeyay hadii aan ku bilowno filimka marka lagu magacaabo Godfather oo Arjuna oo marka hogaamiyay keenka lagu magacaabo Farunten iyo sidoo kale marka xigta lagu magacaabo Sachi Fadia filimkan hogaamiyalka filimkan marka la fiirdhawan oo kaliya filimkan wuxuu noqday filim marka ku burburay oo disaster weyn filimkan noqday xitaa qoliyaha reporterska ama soo gabiyay warbixinada xitaa filimkan ma ay soo qaataan oo weekendiga 3 maalin ugu horeeyay filimkan soo qaataan reporterska oo filimka waxay sheegeen 3 karoor bar ilaa 4 karoor inuu marka ganacsigiisa ku xindaaban yahay filimkan wuxuu noqday big disaster oo marka Farunten la imaaday waxa badama filimkiisa ugu dambeeyay Gaani oo marka Sonid City marka ku jireen filimka ayaa xitaa marka ka saameyn badan filimka marka loo fiiriyo Godfather Arjuna marka hadda la sheegay ilaa 4 karoor filimka ganacsigiisa inuu marayo taasoo ka dhigaysa filimka weekendigiisa ama 3 maalin ugu horeysa inuu filimka noqdo filim marka fashilmay
xitaa filimka marka lagu magacaabo Petrolanka 2012 ee marka hogaamiyalkeen ninka lagu magacaabo Kartikeya sidoo kale xigta marka lagu magacaabo Neha Shetty xitaa filimkan wuxuu noqday filim kale oo marka burburay oo ganacsigiisa 5 karo ilaa 5 karo bari marka u dhaxeeya marka la fiiriyo ganacsigiisa guud dibadda dal sidoo kale filimka xigwa filimka marka lagu magacaabo King of Kothaba marka hogaamiyay ninka lagu magacaabo Dalkuur Salmaan filimkan marka fiirin ganacsigiisa guud dibadda hada filimkan aad wax maray ku dhawaad 34 karo halka marka la fiiriyo filimkan meesha laga leeyahay Makarela filimka wax ka soo xareeyay ilaa 11 karo xitaa filimka suuqyada caalamka ku wanaagsan yahay oo wuxuu keenay ganacsi marka gaaray ilaa 10 karo filimka suuqyada caalamka soo xareeyay sidoo kale filimka marka la fiiriyo budgetkiisa ilaa 10 karo filimka ku xindaabiyay sidoo kale filimka sheekadiisu marka aad loo leeyahay 2 xilliga bar ayaa filimka meelaha qaar la siinaya taas ayaa ka dhigtay filimka ganacsiyan marka inuu marka hoos u dhaco saaxiibada qiimaha barnaamijka maanta intaas uu ku yahay wax ka soo qoray aan ku soo gudbin doonaa muuqaalada xiga fadlan hadii aad ka heshaan muuqaalka noo leeyahay sidoo kale sii share garee si marka saaxiibo badan ugu soo gaaray saaxiibo u gaaro marka ay ku soo biiraan channelka waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.